mashruuca horumarinta bulshada iyo awoodsiinta dumarka ayaa lagu qabtay xarunta aqalka dowladda hoose xamar kaasoo loogu talagalay in kor loogu qaado doorka ay haweenka ku leeyihiin siyaasadda iyo maamul wanaagga. mashruucan ayaa waxaa daahfuray duqa magaalada Muqdisho mudane injineeriso waxaana loo qabtay xubno ka socday 5 degmo oo kala ah waa Beri, Shibis, Shangani, Boondheere iyo Warta Nabadda. degmooyinkaasi oo ay hogaamiyaal ka yihiin dumar Soomaaliyeed. Maxamed Qadar Ibrahim Cumar Qadarkeeyo oo ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed ee reer Muqdisho ayaa tilmaamay in Muqdisho ay ka soo kabanayso marxaladihii adkaa ee soo martay. bandhigan quruxda badan waxaan leeyahay farxada ii tahay inaan ka soo qayb galo. waxaan kale aan idin leeyahay waxa waaye degmooyinka hadda magaalada nabadda ka jirta iyo quruxdeeda waa aragteen. annaguna haddii aan haysano dhanka fanka waxaan aaminsanahay in wadanka quruxdiisa iyo bilicdiisa intaba aan soo bandhigno si loo arko in ay nabad ka jirto magaalada quruxdeeda nabadeedana loo arko ma aan in dhanka xumaanta laga tuso kaliya dadkan. gudoomiyaha degmada Boondheere ee gobolka Banaadir Zainab Yuusuf Weliye waxa ay u mahadcelisay maamulka gobolka Banaadir. gobolka Banaadir sidoo kale waa u mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa insha Allah taala sidii noogu la talagalay inaan u maamulno oo ummadda aan kala tashano bulshada deegaanka waxay iyagu raali ka yihiin loogu qabto ayna arki doonaan kuna diirsan doonaan waxa loogu qabtay wixii loo keenay ee loogu talagalay si cadaalad ah oo hufan oo dadnimo ku jirto oo muwaadinimo ku jirto. xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Cumar Cabdirasaaq Xuseen ayaa ka warbixiyay ahmiyadda mashruucani. mashruuca mardhow ayuu bilaaban doonaa maanta waa furitaankiisa degmooyinka la imaan doona guddiyaha jiri doona heer gobol heer degmo ilaa heer shacab ama bulshada degmada ku nool waa lagala tashan doonaa. bulshada degmada ku nool baahiyaan ka imaanina mashruuca laguma fulin doono maxaa yeelay waxaan rabnaa inay baahida hoos ka timaado ee anaga ma rabin inaan kor idinkaga keenno. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Basma Camar Shaketi waxa ay kula dardaarantay haweenka in ay ka faa'iideystaan fursadaha hor yaala. in laga faa'iideysto jaaniskan uu noqdo mid taariikh gal ah. maamulka gobolka Banaadir barnaamijkan wuxuu u soo diyaariyay in degmo walba uu noqdo ay horumar ay sameeyso. waxaan rajaynayaa degmo walba baahideeda tan ugu qiimaha badan inay soo gudbiso aan laga faa'iideysto. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineeriso ayaa sheegay in maamulkiisa uu garab taagan yahay dhiirigelinta haweenka Soomaaliyeed. maamulka gobolka Banaadirna mar walba waa idin la garab taagan yahay diyaarna idin leeyahay sidii uu ku hirgeli lahaa kuna dhaboobi lahaa. shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay ugu baaqaynaa in la dareemo istixgelinta iyo sharafka iyo karaamada waa qoyskii ka bilaabataa. qoyskana ahmiyadda ugu weyn waa hooyadii waa gabdhihii kula dhashay waa habaryar waa eedo nidaamka iyo dhaqanka iyo suuban Soomaalida iyo diinteedna dhammaanba waxayna farayaan in tixgelinta haweenka ay tahay mid loo baahan yahay mar walba in la tixgeliyo. marka sidaas daraadeed waxaan rabnaa in bulshada ay ku baraarugto u istaagto mashruucan hirgelintiisana nagala shaqeeyaan si uu u noqdo mid noo hirgala kadibna uu ku baaho dhammaan gobolada dalka oo dhan. Nuur Saciid Taaliil, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.